waxaan beelka giigsan iyo kabaha gadafta uga xidhay waxaan guraha habeennimo u guclaynayaa yeengayga ugu meersanahay koruu dadku seexday badi albaabkana soo gudbeen waxaa gabadanada iyo jubahaan kala go'ayn guryaay hor taagayeen anigoo gaadhka u hayaa dadkaygu inuu ku gamo guliyo sharaf iyo ammaan كترسن عيدا كبليس كجمهورية الصوماليلاند مناسبة سنة قرادة سداد يلباتنات اكي سواريكتي اساس كعيدا كبليس كا وذانا مدحوينه كسو نوو egan gaadhabanaho cadowga ku macbaanku ahay ingaboodday rabanaho bulshada karabaanu hawshan ku gadamanahay allahayow igu gargaar egan gaadhabanaho cadowga ku macbaanku ahay ingaboodday rabanaho bulshada karabaanu hawshan ku gadamanahay allahayow igu gargaar قد عركي عدد إنان قم أوديدي وحان وقالوا منحاي أني وقب كاستوا ومريا وحان قد عركي عدد إنان قم أوديدي وحان وقالوا منحاي أني وقب كاستوا ومريا وحان قمي وشري ونعوغا قوستيتي قربوتكو إنو لدي ضمان مرتشرفته مدحدا قرنكا حكومة قريان حزبيو مدحوينياشي هوري iyo مرتشرفته inooga timid dalalka jaarka ah oo ka xusaayo taliyaha guud ee ciidanka booliiska Jenaraal Gaashaanle Sare Cabdulaahi iyo taliyaha booliiska ciidamada deegaanka Soomaaliyeed Jenaraal Maxamed aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ka qaybgalka ay ka soo qayb galeen xafladan maanta sanad guurada 8aad ee ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo muujinaysa iskaashiga iyo wada shaqaynta iyo amniga geeska Afrika ee ka wada shaqeyno aad iyo aad soo dhaweynayno maanta booliiska waxaan baryeeraynaa warbixintii inayna siiyey xaaladdiina waxaynu ka sawiraan karnaa halkaynu marayno warbixintii ciidanka booliiska waxaynu abaryeeraynaa booliiska colweynaha jananadooda saraakiishooda saraakiil xigeenkooda iyo xaasaskooda iyo carruurtoodaba in sanadkiisa haddii alla yidhaahda ay ku gaadhaan barwaaqa iyo bashbash waxay noo tilmaameen dhibaatada ugu weyne ka haysta ciidanku inay tahay inay dhaceen bilo badan oo ciidanka lagu laayay iyagoo danta qaran ka shaqaynaya taasoo u baahan qaran ahaan inaynu ka howlgalno sidii aynu u yarayn lahayn oo aynu u yarayn lahayn dadka qaldan ee dagaal dantooda kaga hor imanaya ciidanka booliiska waa arrin culayskeeda leh inaynu ku rubino intaasoo sakaaliya intaasoo askari gudaheena inagoo danteena ka shaqaynayna dad waxbardansi waxaa kaloo muujiyeen culayska lagu hayay gaadiidku iyo shilalku oo ka badan dhimasho iyo khasaaraha ay noo geysanayaan kuwa cudurrada waaweyn ee adduunku ka qaylinayo lamida taasoo u baahan
wadajir inaynu qaran ahaan aada iska wacyigelino gaadiidka waa dhibaatada uu inoogu hayo dabcan waynu u baahannahay oo waa nimcaynu gaadiid badan helay iyo isgaadhsiin laakiin dee xagga kalena waxaa togan dhibaatadu inagu hayo oo laynoo sheegay dhimashadiisu inay ka badan tahay cudurrada aafooyinka gaar ahaan aan jecelahay inay jaamacaduhu daraasada badan ka galaan jaamacadaheenna oo fara badan oo arday badan tababara waa inay ka qayb qaataan xalka dhibaatooyinka mujtamaca ee u baahan daraasadda iyo odolaska dheer inay ka qayb qaataan weeyi maanta jaamacadoodu waxay marayaan heer ay noo diyaalaan dhibaatooyinka xalkooda inay sii odorasaan oo aynu ka shaqayno haddaan inta kaga gudbo qodobadii boliiskuna soo jeediyeen ereyga nabadda ee lagu dheeraaday ee boliiskuna intaasoo dhib ugu galay ee qaranku intaasoo ugu bixiyey laba erey baan ka odhanayaa nabaddu waxaa lagu micneeyaa nabadda togan iyo nabadda taban nabadda taban waxa weeye qofku ammaan buu ka haystaa in aanay soconin colaad oo isaga cidu weerayn caawa aanu ka baqayn inay cidu weerarto ama dhacdo laakiin way badan buu qabaa oo cadaalad badan buu tabanayaa oo culisyo badan buu tabanayaa taana waxaa la gaadhaa markaa nabadda taban marka laga gudbo oynu u baahannahay inaynu qaran ahaan ka gudbino nabadda taban oo aan dhibaata ma socoto intaasaa laga dugsanaya maanta dagaalaha kama dhacayo maanta ciidamo soo weerayso gurigeyga waa seexan karaya laakiin maxaa tirsanayaa wax badan oo kale waxaa tirsanayaa in lay soocayo gooni la eegaayo oon xaqayaa laysiinin waxaan talayaa in lay caburinaayo ooan xorriyad u hadeen waxaan tabanayaa in aan siyaasada la ogolayn in halkaa iyo halkaa waxaan doonaya aan helo waxaasoo dhamay waxay ka qayb qaataan inay nabaddu degi weyno markaa waxaynu u soconaa qaran ahaan inaynu gaadhno nabadda togan oo ah qofku inuu ku faraxsan yahay oo uu helay xuquuqda uu dhinac walba ka doonayay aan ahaan la soocayn aan diin ahaan la caburayn aan siyaasa ahaan la caburayn aan dhaqaale ahaan la caburayn oo isagu daraysan yahay inuu helay xuquuqdiisii sharciga dastuurka iyo diinta islaamka ku ogolaayeen taasi waxaa ku imanaysaa markaynu isla fahamno mujtamac oo dhan gaar ahaan dadka u dhegaysto oy kor ka yihiin culimada oo aada maanta dadka u dhegaysto dad badanna jimcihii intaasoo sheekh ay la hadlaan dadka waxaan u soo jeedinayaa inay qayb weyn ka qaataan nabadda inaynu gaadho nabadda togan oo ah in dadka lagu waariyo oo la gaarsiiyo inuu qofka kale xaqiisa dhowro waxaan rajeynaynaa inaan masaajida iyo culimadu ay ka dheeraadaan iyagu inay huriyaan wax khilaafaada ama ay ka yimaadaan ereyo xanafi bini aada ugu wada cundamaa culimaduna macsuumiin ma aha laakiin waxaan u soo jeedinaa maadaama dadku aada u dhegeysto inay xaggooda ka socoto nabad togan oo ereyoodu uu noqdo mid dadka ku daadega waxaa lamida oon u soo jeedinaa madax dhaqameedka oo aada oo dhegeysto dadkuna ay kalsooni badan siiyaan iyaguna inay ka qayb qaataan in ereyga ka soo baxaya uu noqdo miday qofka ku waaninayaan qof wala muwaadin iyo qofka kale inuu xaqiisa dhowro marka hore bini aadmu hadalku isku afkartaa hadduu hadalku duulo xaraf iyo nac iyo hirtaayo keeno oo qofkii la dhegeysanayo la tuhmaayo uu ku hadlo dee way abuuraysaa colaaddi ma degeyso waxaa abuuraysaa in qofkii dhegeysanayey ee ninkan qofkanu maqlaayo ee sheekh ee siyaasi ee madax dhaqameed ee macallin ee professor hadduu ku hadlo ereyo qaldan dee qofka kale maxaa u maqlaysa marka in dadka halkaa nabadda laga raadiyo oo dadkeena aynu barro ka yar ka weyn xuquuqda qofka kuleeduda inuu ilaaliyo caanigu waa inu oriyaa ilmaha yare aabihii iyo hooyadii xuquuqdooda waalidku waa inuu ilaaliya xuquuqdii carruurta macallinku waa inuu ilaaliya xuquuqdii ardayga ardaygu waa inuu ilaaliya xuquuqdii ardayga sarkaalku waa inuu ilaaliya xuquuqdii askariga askarigu waa inuu ilaaliya xuquuqdii sarkaalka waa inaynu sidaa dadkeena u tabarnaa maasha allah dad badan oo aqoon diineed iyo mid siyaasadeed iyo mid cilmiba leh iyo madax dhaqameed dhaqanyaqaana ilaahay weyna siiyey waa inaynu taa fidinaa si ay nabadeynu u degto waxaa kamid a dadka aroogsa siyaasiyiinta axsaabta siyaasada madaxa banaan waa dhab
axsaabtu waa inay iska hor yimaadaan maaha inay isnacaan maaha inay codatamaan waa inay ku doodaan danta qaranka ay ku ekaadaan haddii ninkii siyaasi haweyna uu fidiyo balaayo oo weelgiisa xanaf yeesho oo meelba gaaro dee halkii laga doonaya hogaamiyey qaranka maaha markaa mas-uuliyad badan baa saaran dadka iyo xisbiyada iyo madax dhaqameedka iyo culimada iyo qof walba muddo kaleba inuu doono inaynu ka gudbo nabadda ah ma dagaal ma socdo qolka lama galo inaynu gaarno nabadda is-aaminaada ee qof walba muwaadinka kale qofka kale ixtiraamo uu aamino inay meel wada socdaan intaa nabaddan ka waranaya waxaad maqlaysaan wiigan inagoo geeska africa uu yahay maanta marka leega afrika gobolka ugu liita dhinaca dhaqaalaha dhinaca cimilada siday u saamaysay geeska africa cimiladan isbedelaysaa gobollada kale o dhan way isaga ugu darantay waxaa ka socda xasilooni daraan meel badan ka jirta dadka geeska africa ku dhaqan guud ahaan waxaa ku waajiba inay si wada jira nabadda iyo dhibaatooyinka u keenay isbeddelka cimiladu iyo abaaraha inay aada iyo aada isu dhowraan oo iskaashi raadiyaan baa wanaagsan haddaynu somalilan nahayna cid walba waxaynu doonaynaa inaynu horseed ugu noqono nabadda iyo iskaashiga iyo wada shaqaynta oo dhan caalamka oo dhan jaarka mid inoo dhow iyo mid inaga fogba inay noqoto somalilan meel ay ka fidaan nabadda iyo iskaashiga caalamka oo dhan oo dadkeenu taa fahmo oonu adduunka taa kaga noqono tusaale lagaga daydo haddaba wiigan dhaweyto waxaa maqlayseen intayna maqashay oo miidiyaha laga baahiyey idaacadaha waaweyn dowlad goboleedka puntland baarlamaankeedu dood uu soo dhigay oo runtii la yaab lahayd oo aanan garanaysa u timid iyo sida ay rag waaweyn oo aynu jaarnahay ay uga suurtowday oo yidhi somaliland ha lagu daro liiska argixisada golaha baarlamaanka puntland baa laga soo jeediyey waxaanu leenahay haddaynu nahay qaranka somaliland annagu waxaanu fidinaynaa in soomaaliya nabad loo doono gudahooda ka heshiiyaan annaguna aan u ducayno colaad kama rabno halkaa ay dhigeen waxaanu annagu u dhigaynaa walaaltinimo inay gudahooda hagaajistaan jaar wanaagsan oo walaalaan aynu noqonno dadna aynu isugu dhownahay haddaynaan itaan wax isku tarayna inaynu isu ducayno ay ahayde lagama filayn maanta halkaa ay ka qaaday puntland awal hore xamar way ka socotay taa iyo tu lamidi laakiin lagama filayn puntland oonu jaar nahay oonu nabadkooda nool nahay oo dad iyo dunyaba aanu isdhex maray inay halkaa soo dhigto annagu waxaanu ugu baaqaynaa taa colaad uma hayno shacbiga puntlandna inu taa qabo u malayn maayo iyo qof waxgaradi waxaanu ugu baaqaynaa inaynu nabadkooda noolaano laba dowlad darisa aan kala maarmayn wax walba wadaaga ilaahay wada abuuray colaad gaara wada leh oo labadeennaba cadow ina wada eryanaya oo inu ka wada horjeeda uu jiro cimiladu ina wada saamaysay dhulkeenna abaar iyo biiraantu ku badan tahay kamaanaan filayn waxaa ereygaasi waxaan leeyahay shacbiga puntland iyo madaxdoodaba ereygaasi meelka dhac aan loo filayn wey somalilandna waxaan leeyahay inagu walaala nabad iyo wanaag baynu ugu jawaabaynaa haddii iyagu dee ay qaataan waanu ka abhinaynaa inaynu dagaal iyo ilaa heerkaa iyo buuq dambe midkeenna maqaadi kale inu ka dayno haddayse ka maarmi waayaan waa u toogahaynaa wax dhibaato ka imanaya taana intaasaan ka leeyahay aad iyo aad baan u hambalyanaya ciidanka qaranka waa umahadnaqaya inta ka soo qabiisha dhammaantiin somaliland horumar iyo insha allahu talo wanaag iyo taladeenna oo midowda oon turxaana dhexdeeda ka dhicin ayaanu ugu ducaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi